mid baa intuu maqaaxi galay wuxuu yidhi waxaad ii dhibtaa saxan bariis oo awood haafeen leh magaaladeydii aan ka soo jeeday weli doobi ma laha waa gartay mid aan isku raarnahay baa waa dhaweyto ka furtay oo habeenkii uu dharka dhaqi jiray waxaad uga furi weyd hadda marka adigu mid weyn oo casri ah oo siday u arkaan ayagoo yani sidii waxay u arkaan wax liita laakiin si casriyeysan oo muraayado leh oo mashiinadii waaweyn leh oo maaragtay alaab wallaahi niyo horta waxaad u geyn weyd yani waxa laga yaaba bilow inay yidhahda ninka waynu ku degdegnay horta caliyow doobigu dhib fara badan baa weli lagu hayaa qofka ugu sahlan baa markaad u sheegto inaad doobiilo tahay yaa ku dhihi isaguba waa shaqo qofka ugu ku ixtiraamaya yaa ku dhihi waa shaqo waxaan mooday eega show malaha soo warkii ugu soo gaaray waa dhowtaan maqlay makhaayadda shaaha ninka agteeda waxaa laga furaan maqlay makhaayad la yidhaahdo garabka sixitaanka ee shaaha ninka laga furay iyadana garabka sixitaanka soomaalida u bixiyee dhalinyaro isaga u shaqayn jiray yaa maqaaxyo kala furtay hadda ka hor baa waqtigii xukuumaddana ay timid yaa waxaa inagu soo biiray jagooyin la leeyahay matalan aadan faarax baa waxaa loo magacaabay madaxweynaha xisbiga barwaaqo oo lehna awood ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo waxyaaba noocaas oo kaleeta mid baa intuu maqaaxi galay wuxuu yidhi waxaad ii dhibtaa saxan bariis oo awood haafeen leh soomaalidu marka wax magacyada bixin og wey saas ugu fiirin markaba magac buu ka alifayaa